gashay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummadin iga dambaysaana ma jirtee alaa falyuballigha shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballighuu canii adduu canii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma astur man nasara diina muxamed ilaahow ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول دقتي اسكر حول دقتي أدو جيستان هي بيرها قدتان تجارة أدو كعدان شغلي دينتي دلالكي هلقا دينتي أتكتكتان إلهي الدلي من هوين يا دلي نقصاري ما يدلي نقصي بمايو إلا دينتي نادو نقطان ما هنا إلى دينكم بل إلى دينكم دينتي وحي باقي كل نغنسا صلاة ماها صونك ماها حشك ماها دينتي وحي باقي كل نغنسا في كل زمان وإن لها جهد الدعوة مر علي مركي دينتي واصل دعوة إلهي وحصوص على علماء الربانيين مر لما تصور عصبوني سيسة توحيدك إيمانك يا أخلاق الإسلام كلها ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 6 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii iyo qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan laayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almas'ala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabad galaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara buu nabigu yiri tog shaydaanna toga kalu ka sii wacda lianna umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani as-su' dacwada maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuqubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryadda soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqo ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu saa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomino kama murugoone cuqubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab balay